in uu maanta jidkii dhammaa ee isku xidhayay wadamada for example oo kale jamhuuriyadda Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Somaliland adeer anagu waxa ma aragno dadka qaar xildhibaan waxay leeyihiin xukuumadda madaxweyne Cirro wadankii waxa weeyaan dad badan oo qarannimada Somaliland ka soo horjeedi jiray baa soo galaya oo imika waabay soo galayaan bal arrintaas oo aragtay iyo 30 sanadood maynu ku jiray qaar baa waxa uu arkayay wax ka wanaagsan oo la sameeyaba garan mayna adeer dadka qaar baa siyaabo kala duwan xildhibaan uga hadlayay oo markaasi ka soo horjeeday in markaasi la dhaafsado maxaabiista iyagoo waliba leh markaasi xukuumadda madaxweyne Cirro waxay sii deysay saraakiil waaweyn oo loo baahnaa inaan la siideen bal arrintaadu see u aragtaa adeer maxaa waxaynu ku jirno xukuumadda Somaliland ayaa maanta waxay sii deysay maxaabiis ku xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa kaas oo lagu soo qabtay dagaaladii ka socday magaalada Laascaanood sanadii 2000 iyo waliba 23 iyadoo Puntlandna waliba ay soo deysay maxaabiis halkaasi iyaguna ay ku qabteen hadda barbarkayga waxa jooga xildhibaan Saciid Curay oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka xildhibaan soo dhawow bal sidee u aragtaa maxaabiista la isdhaafsaday ee maanta waxa weeyaan dhacay adeer arrintaas waxay tilmaamaysaa bisaylka qarannimada jamhuuriyadda Somaliland in maxaabiis la isweydaarsadana waxay adeer tilmaamaysaa nabadgelyo waxay tilmaamaysaa wax isdhaafsi waxaanay horseed u tahay in uu maanta jidkii dhammaa ee isku xidhayay wadamada for example oo kale jamhuuriyadda Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Somaliland oo ay ganacsigiis maro oo ay qarnimadii jamhuuriyadda Somaliland ay maanta noqoto wax يعني nabadgelyo iyo baraare iyo bashbash nabadgelyo ku sii deynaysa maxaabiistii la isla weydaarsanayo waana wax weyn adeer waa wax weyn dadka qaar baa siyaabo kala duwan xildhibaan uga hadlayay oo markaasi ka soo horjeeday in markaasi la dhaafsado maxaabiista iyagoo waliba leh markaasi xukuumadda madaxweyne Cirro waxay sii deysay saraakiil waaweyn oo loo baahnaa inaan la siideen bal arrintaadu see u aragtaa adeer maxaa waxaynu ku jirno 30 sanadood maynu ku jiray qaar baa waxa uu arkayay wax ka wanaagsan oo la sameeyaba garan mayna adeer in maxaabiis aynu dagaal ku soo qabsanay cidii aynu ka qabsanay isweydaarsanaa waa wax weyn adeer waa dhantahay way su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya dadka qaar xildhibaan waxay leeyihiin xukuumadda madaxweyne Cirro wadankii waxa weeyaan dad badan oo qarannimada Somaliland ka soo horjeedi jiray baa soo galaya oo imika waabay soo galayaan bal arrintaas oo aragtay adeer anagu waxa ma aragno